nin ayaa iga sheekeeyey dhakhtar lagu qalay Canada ayaa wuxuu yidhi intaan qalliin galay culus ayaa wuxuu yidhi gabadh dhakhtarada ayaa ay soo booqatay maalintii ku xigtay dabeetana waxay ugu tiri xaalkaaga ka waran waxaan uun daldalay buu yidhi wax ilaahay uunu koobi karo ilaahay mahadi baan ku sugan nimciyo barwaaqaan ku sugan aad baan u wanaagsanay gabadhii baa dabeetana aad u yaabtay buu yidhi markaasay tiri miyaanad ahayn ninkii halkan lagu qalay shalayto maya isaga haddaa barwaaqadan iyo nimcadan iyo wanaagalaad sheeganaysaa xaguu kaaga yimi kii dhibtaan oogay soo bartay baaba tahay markaasaan ku yidhi anigu dad muslimiina baanu nahayo wixii nagu dhacay dhibaatana ilaahay baan ugu sabaqnaa khayr iyo wanaag bay noo noqotaa kadaari markaa dee wixii wanaag ku mahadnaqanaa waxay tiri anna maalin walba nafda saan isaga jari lahaa baan ka fikiraa bay tiri anna maalin kasta nafda saan isaga jari lahaa baan ka fikiraa bay tiri yacni waxa weeye qofkaasi waxa laga yaabaa adduunyo dee mansabkii ugu sarreeyeyba ayaa manaasidii ugu sarreeyey waa qof dhakhtarada mushaarkii ugu fiicnaa bay qaadataa gaarigii ugu dambeeyey baa laga wadato waxa weeyaan gurigii ugu fiicnaa baa laga yaabaa inay haysato oo ay wadato haddana waa taa maalin walba ku fikiraysa inay nafda iska jarto yacni waa iimaan la-aanta shay markaa aanu buuxinayno oonu qado u noqonaynin waxaan la cunayaa ee markaa ruux markaa wax kale quudanaysay oo iimaan markaas iyo xuska ilaahay iyo qur'aanka iyo alla ku xidhankiisa quudanaysay ayaa xidhiirkii ka go-an yahay anteenadii baa ka maqan dabeetana waxa weeye halkaasay markaa nafdi gubanaysaa ay ololaysaa qofkiina ay dhibaysaa laakiin qofka mu'minka ah isagoona adduunyo fara badanna haysanin ayuu waxa yara ilaahay siiyey ayuu ku qanacsan yahay taas ayuu markaa ku degan yahay taasuu markaa ku murugo la-yahay markaa ilaahay wuxuu leeyahay nolol wanaagsan ayaanu adduunyada ku noolayn doonaa oo sacaadada iyo liibaanta oo qanaacadaasi wixii ilaahay siiye ku qanco ah aakhirana markaa waxaan ku abaalin doonaa yacni kii ugu wanaagsanaaye markaa wixii ay wanaagsanaaye samaynayeen abaalmarintiisa ayaanu siin doonaa markaa iimaanku tumaaniino iyo xasiloonibu qalbiga geliyaa raaxo ayuu geliyaa qanaaco ayuu siiyaa wax la yaaliyo wixii ilaahay ku arsaaqay inuu ku qanco